marka uu laaga ka dhacay wuxuu ahaa nin uun aanu soo qadnay meednimada wuxuu ahaa nin adigu dee dhaqdhaqaaq unaad markaa uun dareemayso inuu yahay qoyaan uun asrorismaan hadda neefta ma waa ka baxay waa ku jirtaa baan isku hayn in ka badan 30 maalmood ayuu kooma ku jiraa wiilkan da'da yar ee lagu magacaabo Jaamac Salaad Maxamed oo ka dhacay laa ku yaala buuraha degmada Gudmo Biyacas ee gobolka Sanaaga sida uu sheegay Salaad Maxamed oo aabaha wiilkaasi dhalay dhammaan jirkiisu waa jajabay marka laga reebo Luukaliya oo u bed qabta madaxa oo dhowr jeer qaliin ay kaga sameeyeen dhakhaatiirta cisbitaalka Sanaag Speciality ayaa haatan ugu sii daran waxaana ay sheegeen inay hadheen qaliimo kale oo lagula tacaalayo xaaladda caafimaad ee wiilkaasi magaciisu inanka waxa la yiraahdaa Jaamac Salaad Maxamed Awid ana aabihiisana sida ay wax u dhaceen waxa weeye marka hore amarka Ilaah waa iskale inankan waxaanu ahayn debeysato baanu ahayn adduun jirta marka xigta hadan baad Ilaahay ka tuuray leeg runtii aad u dheer 200 oo mitir meelaha ah marka amarada Ilaahay waqtigii uu meesha ku dhacay uu ku raagay waanu weeray muddo dheer baanu baadi doonaa adigu wuxuu ka dhacay 9kii subaxnimo buu ka dhacay 8diina waa habeenimo si weyn buu wuxuu gaarin iminka adin baa uu u bad qaba inta kale waa aad buu moogtay dhaawac weyn uga gaaray madaxu ha ugu dhaawac weynaadi markii hore waa meed ahaan baanu u soo qaadnay in xabaashii dawaba loo balaabay markii dambe oo goortan aragnay inuu nool yahay la soo carray halkan baanu kula soo eeranay iminka halka wuxuu yeelay hadda 6 jimce dhakhaatiirtu waxay dhaheen waxay qaliin degdeg ah bay u sameeyeen dhiigii uurka ugu noqday bay ka soo daayeen runtii si fiican oo aad bay ugu shaqeeyeen dadka muslimiinta waxaan ka codsanayaa in ay nacaawiyaan oo dee iminka anagu dad dayara baanu iska nahayn adduun yar baanu deelahayn adduunkii waxaanu keenaynaa waanu xaraash marka waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta walaalaha ee daawanaya inay nacaawiyaan Sheikh Jaamac Jablibaax oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan wiilkaasi yar oo tiraba dhowr jeer oo dambe qaliin gali doona halkan waxaan arkayaa aanu u nimi ilme la ka dhacay sida aabihii ka warbixinayo muddo 12 saacadood ku dhow la weysanaa dabadeedna la helay isaga oo naf yari ku jirto adin qulina bad qabo madaxiisana lafuu jaban yihiin 3 waaxoodna jaban tahay dhiigu uurka ugu noqday ayaa halkan aynu ku aragnaa markii halkan la keenay la dadaalay oo dhakhaatiirta ay aad uga mahad sheegteen dhakhaatiirta halka joogta Allah barakayo ilmahaasi tacaawun buu u baahan yahay الآن كوميدي وكجرا وأنا بلي يلا بيو طوال مالها سومرية نيكي دلنا ويتالوا أفرق لنا ولا قسم يوا حتى بالي قال لي كلو هذا نوسي باهي نقالي وحلا قبل الله ما هيو هرت لا يعرف ما ديو مرلبات كانوا وحولنا أمد سال الله وسخره وروحنا أباهنا هيدتك هذا شاب كودي بخلي ما كشيء نبينا صلى الله عليه وسلم وحو تلماميا ورصدقات isku daaweeya maanta corona dib uu soo noqday daawada ugu koobaad ee ugu horeysa waxa weeyaan in sadaqada la isticmaalo dadkeenaasi qof kasta oo inaga mid ah hadii ilmihiisu sidaa noqdo meel alla meel lama xijiyeen meel walba ka yaaci lahaa oo ilmaha aanu gurmano oo dad iyo dibadba dadka muslimiinta ay muxsiniinta ah aan u gurmano oo u dadaalo Allah ya baarik إلهي هيدا نسترو قف هدو قفرنا يا أنجا دعاء بدن بدعينا هدي هالشخصية هذا المها أنا ورك سلامينية هدي لبا سوق عشتنا وكسيدران هدي أفر سوق عشتنا كسي في عن وعلينا ولي بدت كان ريع رقابو العقد هايستو ولله إنك عبصو المها يرتاجرا haddaba dadka muxsiniinta ee daawanaya muuqaalkan waxa laga codsanayaa in wixii tabarucaad ay ugu hagaajiyaan lambarada shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Isar Saab TV Cergaabo